arrinta shanaad waxa weeye niman ka yimaada meelaha Yurubta iyo Mareykan iyo Kanada iyo Australia oo isa soo bedelay oo jirkuun inaga yahay midabka iyo magaca saddexaasaynu ku leenahay laakiin ijiinka iyo aqliga fikiraya iyo maskaxduba ay yihiin qolooyin kale ayaa inoo yimaada markaas ay furayaan meelo lagu dhaanso meelo lagu heeso meelo lagu caweeyo oo wiil iyo inan yar oo shabada la isu keeno minus iyo plus haddii la istaabsiiyo waxa ka dhacaya waa taqaana wiil dhalinyaro 20 jira oo magaalo ku koray oo habeen gaajoon oo laga yaabo dareenkiisu inuu hawada marayo iyo inan la mida ayuu leeyahay waa la caweynaya markaas waa habeenka jimcaha waa habeenka sabtida waa habeenka kada ummad bay u tageen ummadaasi aqoontay lahayd inoogamay keenin ilbaxnimadoodii inoogamay keenin habka wax loo dhaqbo ama loo dhaqdo inoogamay keenin habka wax loo maamulo ina dheeriin inoogamay keenin sidee bay inooga keenaan dhaqan xumada sidee bay inooga keenaan fasaadka iyo dhaaniska iyo heesta iyo jaaska iyo waxaan khayr lahayn oo ilaahayna nacsiinay inagoo xaaladda ku jirna kulul iyo abaarta iyo koroonaha iyo sixir bararka ayay taana inoogu sii darayaan waaba in la isla hurushoodo markaas uu leeyahay dalkaygaan maal gashaday maxaad ku maal gashatay macaasida maxaad ku maal gashatay fasaadka maxaad ku maal gashatay ma ubadka la baabiinayo hada istismaar ma maal gashigu kaasi noqonaya waxa qariib oo walaalayaal nimanka la yiraahdo Jabaaniiska Al-Yaabaan Jabaanka waxa la yiri dhalinyaradii ugu horeeyay u direen xagga iyo Yurub waxay target ka saareen sidee ijiin loo sameeyaa nin loo leeyahay Yokoshima wuxuu ka soo bartay ijiin sida loo sameeyo sirtana uu qarinay habeenkii gurigiisu ku dhex sameyn jiray lacagtana madaxweynaha Jabaanka uu soo diri jiray maalintii ijiinkii bartuu dhameystiray ayuu soo dhoofay waa ka maanta Jabaankii adduunka qabsaday wax la wixii baabuura khibradun buu ka keenay khamrigoodii muu keenin naagahoodii muu keenin inkaartoodii muu keenin ninkii koobaad ee islaamiga loo diray Yurub wuxuu ahaa Qaasim Amiin Misri buu ahaa 1813 buu wala 200 sano meelaha taqriiban wuxuu ka keenay naaqawan oo cadaan uu soo guursaday oo timii cadaa ee saynta ahaa dhabarka ka kala rogtay iyo isagoo nigteen xidhan quraarta khamriga sita la xijaabku waa maxay dumarkii baa dadeen ka tuura intaas uu la soo guriyo noqday wuxuu la soo guriyo noqday halaga tuuro xijaabka muu keenin sayniskoodi muu keenin ijiinadoodi muu keenin nuclearkoodi muu keenin satellite-dii ay dirayeen wax alla wuxuu ka keenay naaqawan iyo khamriga uu dhaladu gacanta ku sito waa nimanka halka ka imanaya haddaanay dalka dhaqaale ku soo kordhinay oo aanay aqoon ku soo kordhinay oo aanay khibrad ku soo kordhinay macaasidoodii iyo fasaadkooda ay naga haystaan waa maqlaysan wiigi dhawey tabraco in culimadoodii iyo mas'uuliyiintoodii waxa isku marteen oo israaceen oo dhan wada jeesteen macaasidana ay ka hortageen aad baan u hambalyeynaya waxaan leeyahay ummadda noole waa caynka mas'uulkooda iyo madaxdooda iyo culimadooda iyo aqligoodii dhan bay wada mareen adeer uma baahnin fasaad xumaanteeda xumaan ha noogu darin baydaan laakiin nimay ku hadhay hawle haysaa burxo waa in yaro is arkaysa laakiin Hargeysa ka warrama waxba laga yaabaa inuu ku farxayo leeyahay nin baa laga sheegay wuxuu yiri Hargeysa inuu ku beeruntiin Hargeysadii hore imka noqotay gol hadii hable halka marayaano casarkii dhaadhacayaano nooca xidhi maanta bay Hargeysadii rasmiga noqotay Hargeysa rasmiga maxumaantii Hargeysa ku ahay